fanaanka Khalid Kamil wuxuu yiri qasa waa la dumiye ma uga sii dareena barakaca dadkeedana ma dabaaldegeena dulmigii dhibaatada ma ku diirsan doonaa erayadaas heesas ayuu sameeyay maantana xabsi ayuu ku jira Hargeysa ayuu ku xiran yahay asagoo soo socda magaalada Muqdisho qasa waa la dumiye ma uga sii dareena barakaca dadkeedana ma dabaaldegeena dulmigii dhibaatada ma ku diirsan doonaa go'aan kalimadowba safaradu madowba hanaga Soomaaliyeed wuxuu la damqaday dadka muslimiinta ah ee reer qasa qaasatan reer Falastiin safaradii oo ka furtay Ciro oo sidoo kale si jees kale heed Netanyahu oo yiri dhulkan Qudus anaga ayaa iska lahan jirnay 300 sano ka hor waan ku faraxsanahay dad muslimiin ah maanta inay noo saxiixaan oo safaradii ka furtaan. This is by way of expressing also our appreciation for the fact that you're opening an embassy in Jerusalem, our ancient capital. It is your parallel recognition, just as you expect nations to recognize your sovereignty, your identity, your own rights, your own national rights. The same thing we have vis-a-vis our capital. It's only been the capital of the Jewish people since King David. That's only 3,000 years ago. dhibaatada iyo waxyaabaha soo socdo oo Netanyahu la damacsan yahay dhulkeena iyo sidoo kale qaaradeena oo wax halis ku ah i'tiraafkana maanta wuxuu dhalay halis inaba caadi ahayn dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah halistaas hadda way ka dhiidhinayaan sidoo kale waa ka soo horjeesteen waxaan rajaynayaa fanaanka Soomaaliyeed in la soo daayo sidoo kalena waxaan la saxiixay oo beenta ah in laga laabto waa wax halis ku ah jiilka soo socdo dhulkeena sidoo kale dariskeena marka qof qaadanaya malahan waa wax halis ah qof inta iska ordo asagoo xanaaqsan wax soo saxiixo dhibaato ayuu keeni doontaa jiilalka soo socdo waa la ogyahay dadkan sida ay u galeen dadkaas reer Falastiin ay soo dhaweeyeen Soomaaliya noolato